Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhow kororsa aqoon channel oo laga barto cilmiga ICT-ga iyo computer science-ka iyo waliba English-ka. Maanta casharkeen waxaan kugu bari doonaa haddii aad update gareysay ama aad upgrade gareysay Windows-ka kugu jira computer-kaaga, waxaa jira file ay ku qoran tahay markaad C-da soo gasho qaybta C-da ee uu Windows ku duuban yahay. Waxaa jira file loo yaqaano oo samaysma oo loo yaqaano windows.all. marka faylka computerkaaga ka eeg haddii uu faylkaas computerkaaga ku jiro waa inaad iska saarto waayo waa Windows-kii hore oo hadda markaad upgrade gareyso kii horena uu kugu jiraa. Marka haddaynu isla eegno faylkan CSS-kiisa computerka ayuu kaa buuxinayay oo aan properties tagno intaad dul tagtaan right click nidhaahno oo properties ka eegno waxaad aragtaa ayaa ah halkan CSS-kiisu inuu aad u weyn yahay oo waxa uu gaadhaya ilaa 20 GB weli wuu wadaa waxaad aragtaa inuu yahay 23 GB CSS-kiisu 23 GB waa storage badan buu ka qaadanaya marka waa storage badan weeyaan marka 23 GB si ay free kugu noqdaan waa inaad iska saarto marka Windows-ka hore si aad u saarto halkan ka delete gareynin waxaad samaysaa this PC tag ka bacdina right click dheh local disk C da right click dheh ka bacdina properties ku dhufo properties markaad ku dhufato waxaad ka sii doorataa disk cleanup markaad ka doorato halkan ku soo saaro halkan waxaad ka sii doorataa clean up system files ka click si ka bacdina box yar baa soo bixi waxoogaa yar sug waqti bay qaadanaysaa okay marka uu intaa dhameeyo xaggan hoose kaalay oo hoos soo dhaadhac ka bacdina halkan waxaad aragtaa previous Windows installation ka tick saar ka bacdina waxaad tidhaahdaa okay de ka bacdina delete files de mid kale tika saarin kuwan kale oo dhan tika saarin hadda tika iska saarto kuwan kale waxa laga yaabaa inay faylal muhiim ka baxaan kaliya waxa tika saartaa uun ka Windows installation ay ku qoran tahay ama previous Windows installation iyo thumbnails-ka iyo waliba download program files-kaas iyo weymadeen bayaga tika qaad okay inta markaad samayso ayaa tika saarta ka previous Windows installation ay ku qoran tahay ee 24 GB waxaad tidhaahdaa okay ka bacdina delete files de yes daaqada ku soo baxday ka bacdina waqti bay qaadanaysaa yar sug iyadoo ku xidhan tahay speedka computerkaaga marka uu dhameeyo okay de ama iska xidh markaad iska xidho haddaan imika galno halkan waa uu ka saaray kii ay ku qornayd windows.all ay ku qornayd marka wuxuu ahaa file CSS-kiisu aad u weyn yahay ama folder CSS-kiisu aad u weyn yahay marka storage badan ayaad helaysaa oo 24 GB ama ka badan ba harjinaya casharka maanta ka faa'iiday la soo casharada xiga ku xidhna kororsa aqoon channel haddii aan hore subscribe u saarin fadlan subscribe nagu caawi thank you